gacmaha iyo lugaha haddii aad caata ka tahay ama aad zaid uga dhuudhuuban tahay, alaabtan ka faa'iideyso. waa alaabta gacmaha iyo lugaha nafaqada siinaysay oo cayilinaysay oo kushkush iyo bucbuc ka dhigaysay. sidoo kale haddii wejiga aad caata ka tahay, alaabtan marso. maasha Allah, waa alaabta wejiga, gacmaha, lugaha, meel walbo aad caata ka tahay, alaabtan waxay ka dhigaysaa bucbuc, kushkush, kaale iska araga. meel walbo aad ka dhuuban tahay waa marsan kartaa. sidoo kale haddii gacmaha iyo lugaha ay kaa dishay daawo oo kareemyada la marsanayo ay kaa dileen, alaabtan marso, way kuu soo celinaysaa oo sidaada hore kusoo noqonaysaa. kushkushna way ka dhigaysaa, bucbuc qurux badanna way ka dhigaysaa. maasha Allah, waa alaab yar oo natural oo lugaha iyo gacmaha ka dhigayso kushkush ama bucbuc. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin soo dhawaada. waa walaashin oo inii sido cashar kale cusub ayaa maanta inii wadaa. waxaana inii wadaa alaabtan ayaa inii sida walaalahayga. waa alaabtii gacmaha iyo lugaha dhuudhuuban nafaqada siinaysay oo ka dhigaysa bucbuc ama kushkush, kaale iska arag. ama jirkaaga meel walba uu ka dhuuban yahay haddii aad marsatid oo kale, kushkush ayay ka dhigaysaa oo bucbuc qurux badan oo cayilan. alaabtan marka gacmaha iyo lugaha way cayilisaa, jirkaaga meel kasta oo ka caataana way ku cayilinaysaa insha Allah. kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabo aan ka sameeyay sida bismillaah. alaabteeni ayaan sameysanaynaa walaalahayga. marka hore waxaa u baahan tahay xulbo, ayaa u baahan tahay xulbadeeni caadiga ahayd. xulbadana waa noocaas walaalahayga, waxaana kasoo gaday meelaha raashinka lagu gado, waa lagu gadaa xulbada. digsi yaraan soo qaatay, waxaan ku shubay 2 qaando xulbad ah. waa ina alaabtan qiyaas ahaan ku karsataa, haddii aad qiyaas ku karsanin way ka halaabaysaa. marka ani waa qiyaasanaya 2 qaando xulbada ayaan digsiga ku shubtay walaalahayga. sidoo kale waxaa u baahan tahay saliida oliifada oo bakeeri haafkiisa ayaan waxaan ku shubay xulbadii. waa saliida oliifada iyo xulbadii ayaan isku daray, waa bakeeri haafkiis. saliida oliifada ayaa u baahan tahay, saliid kale ma isticmaali kartid. oliifadana waa noocan, midda dhalada iyo midda caaga waa isku mid, midii ku taalo isticmaal. muhiimadu waa inaa heshaa saliida oliifada. waxaana ka isticmaalay bakeeri haafkiis oo kaliya ayaa u baahan tahay. qiyaas ahaan ayaa alaabtan ku karsanaynaa, haddii alaabta aad qiyaas ku karin way ka halaabaysaa. sidoo kale walaalahayga saliidii iyo xulbadii waxaan ku daray 2 bakeeri oo haafaaf oo biyo ayaan ku darayaa. hadda bakeeri haafkiis biyo aan ku daray, haddana waxaan ku darayaa bakeeri kale haafkiis oo biyo ah. waa 2 haaf oo 2 bakeeri oo biyo ah oo haafaaf ayaan ku daray. inay fahanteen ayaan rajeynayaa walaalahayga. waa xulbadii iyo bakeeri haafkiis oo saliida oliifa iyo 2 bakeeri oo haafaaf oo biyo. intaas ayaan dabka isla soo saaray. dabkana u gaabi insha Allah, oo dab xoogan alaabtan ha ku karinin. intaan hadda walaalahayga intay isla soo karkarayaan waa sugeynaa muddo 20 daqiiqo ayaan isku karinayaa insha Allah. aqyaara inay fahanteen ayaan rajeynayaa. digsigan waxaa noogu jiro xulbad 2 qaanda, sidoo kale waxaa noogu jiro saliid saytuun bakeeri haafkiis ah, sidoo kale 2 haafaaf oo biyo oo bakeeriga shaaxa ayaa noogu jiro digsigan. intaan ayaan dabka isla saarnay, inta isku soo karkarayso muddo 20 daqiiqo waan sugeynaa. marba mar ka dambeyso biyaha iyo saliida way kala dhamaanayaan insha Allah. walaalahayga waa u jeediin way noo soo karkaraysaa oo dabkiina waa u gaabiyay. biyihii iyo xulbadii iyo saliidii hadda sidaas isku karkaraysaa maasha Allah. ayaga ayaa ka dhamaanaya biyaha. anaga waxa u baahanahay oo kaliya saliideeni aan meesha ku shubanay iyo xulbadii inay isku soo harto oo kaliya ay ka dhamaadaan biyaha. marka hadda intaas intay isku soo karkarayaan waa sugeynaa 20 daqiiqo kaliya ayayna noogu bislaanaysaa. dabkana low uga dhig. marba marka kasii dambeysa alaabteeni biyaha way kasii dhamaanaysaa oo hadda qaybta ka dambeyso way kasii yaraanaysaa maasha Allah. dabkana wuu noogu gaaban yahay. alaabtan walaalahayga laguma sheekeyn karo, waa alaab yar oo fadhiso oo maasha Allah oo dhan walba ka dhameystiran oo kaale iska araga. insha Allah inaad ku faa'iidiin ayaan rajeynayaa walaalahayga. hadda waa u jeedin marba marka ka dambeysa biyihii way kasii dhamaanayaan saliida. insha Allah waa isla arkaynaa hadda inta kusoo harto. maasha Allah walaalahayga u jeedin soo maahan. hadda way noo dhowdaha alaabteeni dabka isku saarneed biyihii waaba ka dhamaadeen. wax yar oo kaliya ayaa ku dhiman, xulbadii iyo saliidii oo kaliya ayaa isku soo hartay. hadda inta ka dhimanna waa sugeynaa insha Allah. wax yariisa u dhiman oo badneen. waxaa loo baahan yahay in alaabtan biyaha si fiican uga dhamaadaan intay dabka saareen. haddii biyo ku jirto waxba ma ku tarayso. maasha Allah alaabteeni waa noo diyaar walaalahayga.
sidaas ayay noogu soo baxday. Hadda maasha Allah waa u jeedin saliid kaliya noo soo hartay. sidee ku ogaanay inay saliid kaliya ku soo hartay? waxay joojinaysaa wixii faraha badnaa oo karka ah oo zaa'idka ah uu ka yaraanayaa oo isheeg xunbada ahaa. sidaas ayayna noogu soo baxday maasha Allah. dabkana haatan waa ka damiyay. intay saliideena hadda noo qaboobayso waa sugaynaa saliidii kaliya iyo waxaa isku soo harta xulbadii. biyihii way ka dhamaadeen. alaabtan biyaha ayadoo iska dhamaanin dabka ha ka damin, haddii kale way kaa halaabaysaa. xulbadeeni way noo soo qabowday saliidii walaalahayga. haatanna waa miiranaynaa oo waxaan ku miiranaynaa weel yariis ayaan ku miiranaynaa, baaquli yar insha Allah. waxaa waaye markay qabowdo miiro. alaabtan waa alaab yar oo fadhiso oo kaale iska araga oo maasha Allah oo natural oo wax kiimikaal lahayn oo kaale iska araga. xulbadana dhanka caafimaadka way u wacan tahay oo dhan walba u fiican tahay. dumarkana aad iyo aad ay ugu fiican tahay oo faa'iido fara badan ay u leedahay. hadda waa kaas walaalahayga markii aan soo miiranay alaabteeni sidaas ayay noogu soo baxday. haatanna waxaan fiirinaynaa saliideena qiyaasa ku karsana soo ma ahan, qiyaastii inay noogu soo baxday in kala fiirinaynaa maasha Allah. intii aan ku shubnay oo kaliya isla bakeeriga aan ku qiyaasin ayaan saliidii ku shubnay. intii oo kaliyana noo noqotay waa u jeedin walaalahayga waa haafkii aan ku shubnay oo kaliya ayay noogu soo baxday maasha Allah. waxaa waaye alaabtan gacmahaaga marsanaysaa. haddii aa gacmaha caata ka taho kale waa marinaysaa, haddii aa lugaha caata ka taho kale waa marinaysaa. waa alaab yar oo natural oo lugaha iyo gacmahana buuc kush ka dhigaysa. hadda maasha Allah cayil qurux badan ayay yeelanaysaa alaabtan. haddii aa wadid muddo 1 wiiga oo si toos ah u marsatid oo hal bilow kaliya aa isticmaashid mar walba waa karsanaysaa. sidaana u marsanaysaa gacmaha iyo lugaha ku masaajeyne si fiican ugu masaajeyne gacmaha iyo lugaha. haddii ka dhuudhuubayn alaabtan buuc ay kaaga dhigaysaa kush qurux badan maasha Allah oo smooth jir yar waxa ku soo baxay jileeca oo qurux badan oo haddana cayilan maasha Allah. meel walba oo caata ka tahay ayaana marsan kartaa. lugaha iyo gacmaha oo kaliya ma ahan, wajiga haddii caata ka tahay marso, garbaha haddii caata ka tahay marso. habeenkii inta alaabtan lugaha iyo gacmaha marsatid ku seexo kuna masaaje inta aad marsanin oo si fiican jirka ugu dalin kabacdina seexo. adiga ayaa iska dareemaysid muddo 1 wiiga haddii aa sheenadan wadid insha Allah result fiican ayaad ka helaysaa. haddii ay lugaha iyo gacmaha ay daawo ka dhameeyso kale oo kreemada la marsado ay ka bahdileen alaabta marso oo gacmaha iyo lugaha waxay kaaga dhigaysaa nafaqaysiinaysaa, jirka qurxinaysaa, buuc kush kaale iska aragay ku noqonayaan. lugaha iyo gacmaha wayna ku dhalaalayaan oo waxayna ku noqonayaan alaab yar oo buuran oo kaale iska araga oo kush oo nimco fadhisa ah hadda ah maasha Allah. marka walaalahayga ka faa'iideysta meel walbo jirkiina caata ka tahayna waa marsan kartiin. waji, garbo, lugo, gacmo wax ay diidaysa ma lahan. xulbada jirka way u fiican tahay. jirka haddii daawo ka dishay alaabta marso. soona dhawaada hadda meel walbo aad joogtiin walaalahayga. haddii aad hore noola joogto soo dhawow, haddii aad janaalka ku cusub tahay soo dhawow insha Allah. videogaana share gareeyo oo asxaabtiina la wadaaga.